waxaa maanta si rasmi ah garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso oo ka dhoofay madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo iyagu ku sii jeeda dalalka Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta halkaas oo sida la sheegay uu kaga qayb gali doono kulamo la xiriira xiriirka wadamadaasi dhinaca iskaashiga amniga ganacsiga iyo arrimo kale oo la xiriira iskaashi dhinacyo badan leh waxaana garoonka ku sii dhaweeyay madaxweynaha Puntland gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka gobolka Bari iyo mas'uuliyiin kale madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa gegada diyaaradaha ee magaalada Boosaaso warbaahinta uga warbixiyay ujeedada safarkiisa isagoo si gaar ah ula dardaarmay dadka reer Puntland oo ugu baaqay inay amniga iyo xasiloonida ka shaqeeyaan xilli waayihii ugu dambeeyay goobaha qaarkood ay ka dhacayeen falal amni oo markaasi la sheegay in ay inta badan la xiriiro falal markaasi amniga wax u dhimaya waxaan maanta aan babaxayaa socdaal hal isbuuc qaadanaya oo aan ku tagi doono dalka Itoobiya iyo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta oo uga qayb gali doono aadi doono hawlo la xiriira amniga iyo nabadgelyada iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland ilaa waxaan ka rajeynayaa inuu nagu soo guurayo socdaalkaas wax badan oo taro aanu ka helno insha Allah dabadeedna wadanka ayaan ku soo laaban doonaa waxaan ku dardaarmayaa dadka Puntland meel kasta ay joogaanba inay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo xasiloonida iyo karaamada iyo sharafta dalka lana ilaaliyo lana dhowro ayaan ku dardaarmayaa aad iyo aad baad mahadsantihiin Ahmad Sham on Cable TV Boosaaso.